بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وحوي حلقة صدحات كصاب صنيد ملائكة يجينكم محي كليهين وأينو مانتا كفلان قين دونه إن شاء الله تعالى أما سيوادي دونه صفوين كي ملائكة وحينو كبلا بيننا مانتا باحدود أما ويندود حجمigoodu intuu la egyahay malaa'igta. waxaynu hore u soo sheegnay inuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam arkay malak jibriil oo ah siduu ilaahay u abuuray oo 700 ama 600 oo baal leh 600 oo baal leh oo siduu rasuulku yiri salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi baal kaliya oo 600 ee baal kamidii u buuxiyay ama daboolay ufuqa oo dhan, macnaheedu samooyinka oo dhan daboolay. baaxadoodu intaasay la eg tahay. rasuulkii alle sallallahu alayhi wa sallam oo inoo sii fasiraya intay la eg yihiin malaa'igtu, sida laga soo wariyay Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu arda, wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wa sallam: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، صحيح في سنن أبي داود. نبي وحي صلى الله عليه وسلم سيد جابر بن عبد الله لقسوري وحلا إيفصحي أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، وحلا إيفصحي إن أن إذن كورمه ملك كمد ملائكة إلهي من ملائكة حملة العرش، ملك أسو كمد ملائكة عرشك سده. ومركا النبي يقول سقوا كور رمية أذن لي بيقول والله يفصحي، معني إلهي بقى أفصحي إنه بني آدمك يجينك بقى وقور رمو ملائكته انت اللي أكتهي إنه ينغسيو فكرة إلهي سبحانه وتعالى. والنبي يقول إنما بين شحمة أذنه انت قد حيسة ما هي هدكتي سعارة ديدا iyo garabkiisu intaa waxay isu kala jirtaa inta nimka gacanta ku hayo, waxay isu kala jirtaa 700 oo sanadood inta loo socdo, micnihii qof faras fuushani intuu u socdo. bal marka waxaad adigu sawirataa malaga ay intiisaas la eg tahay masaafada loo socdo 700 oo sanadood, xajmigiisu intuu la eg yahay. bal adigu sawiro qof kasta waa khalqi aad u weyn weeyo oo ilaahay uu subxaanahu wa ta'ala uu og yahay intuu la eg yahay. waxa kale oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ما انتينا انت هرت كجدبن خلقك aynu arkayno ee malak kamidi inta la egyahay oo waliba jibriil iyo mikaa'il iyo israafil midna aan ahayn balse xamalatul arshi ah. malaa'ikti kalena intay la egyihiin waa fahmayna. ilaahi abuuray iyaga inta la eg cadamadiisa ayay ina tusaysaa khalqiga weyn الله أبوري سبحانه وتعالى. تفاصيل كلا أما سفوين كودا كلا وحكمده إن أي ملائكته سرعدود أما حولك أي كصعدان وح عقلك بني آدم أنو كوبي كرين وياي. وإن بدن وحد عضي
rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo su'aal la weydiiyey ama asxaabtii ha weydiiso ama cid kale ha weydiise oo jawaabtii uu rasuulku ka fikirayo isla markiibana ilaahay jibriil soo diray alayhi salaam oo jawaabtii uu u dhiibay rasuulka salawaatullaahi wa salaamuhu alayh aad bay u badantay taas waanaynu wada ognahay malaa'igta uu ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala cilmigoodu intuu la egyahay baynu sifooyinka kale waxa weeye cilmiga malaa'igtu intuu la egyahay cilmiga malaa'igtu waxa weeye wixii uu ilaahay u laqimo ayuunbaa cilmigoodu yahay kuna kooban yahay oo aanu dhinacna u dhaafin haba yaraatee siduu alla qur'aanka inoogu sheegay inay malaa'igta laftoodu tiri laa cilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلهي علمي أنو لنا هاي ما جرتو waxaad adigu noo sheegto uun mooye marka cilmigooda iyo cilmiga bani aadamku way kala duwan yihiin oo iyagu waa allaala waxay og yihiin waa wuxuu ilaahay u sheegay oo aan dhinacna loo dhaafin cilmiga bani aadamka se ilaahay wuxuu qudrad u siiyey bani aadamka in ay iyagu raadsadaan cilmiga oo macrifatul ashyaa'i ayuu ilaahay qudrad u siiyey bani aadamka wa ikhtishaafu sunanil kown in ay cilmiga raadsadaan oo soo iktishaafaan oo adduunyadan ay ku nool yihiin bartaan laga soo bilaabo aadam calayhi salaam iyo xaawo ilaa yowm alqiyaamaha sidaasay bani aadamku ku jireen waa cilmi ay raadsanayaan iyagu intiisa badan malaa'igtuse waa cilmi ay ku kooban tahay uun wixii uu ilaahay baray labada cilmi keebaa tiro badan ama labada malaa'igta iyo bani aadamka iyo jinka keebaa cilmi badan xaqiiqo waxay tahay in ay malaa'igtu cilmi badan tahay waayo malaa'igta haddaanad wax kale oo dhan iska dhaafto cilmigu ilaahay siiyey waxa weeye awood wuxuu u siiyey oo u xil saaray oo uu mas'uul uga dhigay in ay qoraan waxa bani aadamka iyo jinku ay falayaan acmaashooda inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waa kuwo wax kasta oo aa falaysaan og oo wixii aa fashaan iyo waxaa ku hadashaan iyo waxaa ka fikiraysaan boqora kiraaman kaatibiinna ah kuwo wax qoro oo karaamaysan ah sidaas darteed wax kasta oo bani aadamku uu falayo way ogyihiin cilmigoodu markaa intaasoo jeer ayuu ka badan yahay cilmiga addoomaha kale ee jinka iyo insiga labadaba waxaan jecelahay inaan halkaa yaro dhex gelino malaa'igtu maadaama ay og tahay wax kasta oo ay addoomuhu falayaan wax kastoo ay ka fikirayaan wax kastoo ay ku hadlayaan maadaama ay og yihiin mararka qaarkood malaa'igtu waxay la yaab ku noqota ama ay xitaa la dhaygagaan oo ku dhakafaareen acmaashaa bani aadamkay qorayaan kuwo iyaga aragtidooda wax yar oo khafiif ah balse markii ay ogaansho xaqiiqa ay og yihiin xagga ilaahay acmaashaa ay iyagu wax yaroo khafiifa u arkayaan weyniday xagga ilaahay ka leeyihiin subxaanahu wa tacaala kuwaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay xadiiska saxiixa ee ibnu cabaasin radia allaahu canhu ardaah laga soo wariyey inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a aataaniya leylata rabbii tabaaraka wa tacaala fii axsani suura xalayto rabbigay ayaa riyo iigu yimid isagoo ah fii axsani suura suurad ugu wanaagsan ee aan ka fikiri karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa muxamed qultu labayka rabbi hal tadrii fiima yakhtasimu almala'u alaclaa muxamedow miyaad og tahay waxay ka doodayaan malaa'igta samooyinka sare jooga almala'i alaclaa qultu يا ربي لا أعلم فوضع
كتفه فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في ثديي أو برد أناملها في ثديي. dabeetana ilaahay subxaanahu wa tacaala baabacadiisa ayuu labadayda garab dhexdooda saaray ilaa aan farihiisa caaradooda qabowgoodii ka dareemay laabtayda. facalimtu maa fi samaawaati wamaa fi lard, dabeetana waxaan ogaaday waxa samooyinka iyo dhulka oo dhan ku sugan. wa fii riwaayatin fatajallaa liya facalimtu fatajallaa liya كل شيء فعلمته. وحلئي فري علمك وحكسته وإلهي قدري إنا نقاده وأنا نقاده. تبتنوح الليل سبحانه وتعالى يا محمد قلت لبيك يا ربي فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات والدرجات. وحو ربي لمركاك بعدي محمد maxay ka doodayaan malaa'igta samooyinka kore. waxaan idhi waxay ka doodayaan alkafaaraat waddarajaat, waxyaabaha dunuubta tirtira iyo waxyaabaha darajooyinka ku kordhiya addoomaha ilaahay. qaala wama alkafaaraat qultu alintidaaru salaati ila الصلاة والمشي على الأقدام في الجماعات أو إلى الجماعات وإسباق الوضوء في المكاره. wuxuu nabigii ku jawaabay alkafaaraat waxay yihiin salaada oo raggu uu ku sugo salaada kale masjidka gudihiisa, salaada oo uu raggu u lugeeyo masaajidada jamaacooyinka lagu qabanayo salaada jamaca isagoo u lugeeya, iyo weysada oo waqtiyada makruuha ah ee dadku aanu jeclayn sida waqtiga qaboobaha oo ay waqti meelihii loogu talagalay gaadhsiiyaan weeye baan idhi rabbigayow الكفارات وحيابها الذنوب تكثر ترى دوما كواسا كمدا. وما الدرجات بيدي إلهي سبحانه وتعالى درجات كنو حوي إطعام الطعام بانري وإفشاء السلام وحب المساكين والصلاة بالليل والناس نيام. درجات كوحدتك أكريا أما دومها أكريا أنا وحوي إن مساكين تلقوديو صلاة إن لبضيو والله سوي دارسدو masaakiinta oo la jeclaado iyo habeenkii oo la tukado markuu dadku hurdo, kuwaasaa ah kuwa darajaadka u kordhiya addoomaha ilaahay subxaanahu wa tacaala. rabbigaa wuxuu yidhi buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam sadaqta yaa muxamed waman facala dalika caasha bikhayrin wamaata bikhayrin wakaana min khati'atihi ka yowma wulidathu ummuh. rabbigeen wuxuu yidhi markaa maxamedow qofkii sidaa falaa nolol wanaagsan khayr buu weligii ku noolaanaya, khayr buu ku dhimanaya, maalinta uu dhintana wuxuu noqonayaa sidii dunuubtiisa wuxuu ka noqonayaa sidii ilmo yar oo soo dhashay maanta. sifooyinka malaa'igta waxaa ka mid ah inay yihiin khalaa'iq nidaam u babac dhigay oo u baxay gooni ugu baxay nidaam wax la yiraahdo systematic. waxa weeye malaa'igtu shay kasta oo ay falayso nidaamkii ilaahay ugu talagalay bartuu yidhi dhig, saacaduu yidhi dhig, siduu yidhi u dhig ayay u dhigaan ilaahay siduu u amro subxaanahu wa tacaala. markay ilaahay caabudayaan maalan sida jaabir ibnu samura radia allahu canhu wa ardaah laga soo wariyey, maalin maalmaha ka mida wuxuu asxaabtii ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam alaa tasufuuna kamaa tasufu almalaa'ikatu cinda rabbihim. asxaabtii buu ku yidhi maxaa ugu safan weydeen siday malaa'igtu ilaahay hortiisa ugu safato. waxaan nidhi buu yidhi jaabir ibnu samura radia allahu canhu wa ardaah وكيف تصف الملائكة عند ربهم يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. سيدي الرسول كي الله ملائكة إلهي هرتيس أوصف تابان نريبو اليوم وحو الرسول كي صففك أي بوحيان صف بصفك كهريو طبيعتنا
وحوي لين عن مالنا قلوعن أي إلهي هرتي ستاغان الحمد لله رب العالمين وفضل وين أو إلهي أمد النبي محمد أو كليسيي أمد كلا أو سيي ما جرتو خصائصتا أما الصفة أي ملائكة لهي عبادة أي إلهي عابديسو وصفة كلية النبي محمد أمديس صلوات الله وسلامه عليه وإلهي كن نعميستي كغانا فضلي أمدها كلا أردن إن إلهي نغدغي كوا مركين تكنينو الصفة اسكو دايدا إنay u safato siday malaa'igtu u safato sidoo kale waa munadamiin weeye wax kasto ay sameeyaan system biki ilaahay ugu tala galay bay u sameeyaan oo maalinta qiyaamaha malaa'igtu waxay hor imanaysaa ilaahay iyagoo safuuf ah wajaa rabbuka wal malaa'ikatu saffa budi ilaahay subhanahu wa ta'ala safuuftaas وجاء ربك والملائكة صفا صفا إلهي وكعلي لبقور صفا صفا صفوف معنيه سدو إلهي ربيعة توصن on ميلنا كقلوعين ميلنا ضلال لهين ومفسرين القرآن كوحي لهذين ملائك تسموا لبا قولني بي أصفنيسا يقع صفوف إلهي تشعلي هاي سدو يتشعلي هاي وخاشعين وخاضعين يا سيدو الله إنه شيء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا ما أنت أي جبريل الروح جبريل يا ملائكة كلبة إلهي هر إيمانيان يجو صفف منظم سرتاجي إلهي سيدان هر أصو شيء wax kasta oo ay falayaan malaa'igtu waa nidaam ilaahay siduu rabay meeshuu rabay goortuu rabay ay u dhigayaan way wax kasta ay falayaan siduu ilaahay rabay goortuu rabay meeshuu rabay habkuu rabay ayay u sameeyaan Anas ibn Malik waxa laga soo wariyay radiyallahu anhu arda inuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah marka xisaabtu dhamaato la dareero xagga jannada wixii ilaahay u dareernayo ay u dareeraan Allah inaga yeele aati baab aljannati faastaftihu bi nabigu alayhi salatu wassalam albaabka jannadan tagayayo in la ifuro ayaan dalbanaya fayaqulu alkhazin ridwan alayhi salam man anta فأقول محمد فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك الباب كجنة تجي يا مركان دمعين لا يفرع يا وحورنا يا مالك خازن الجنة وعيه وكما وحورنا يا محمد وحورنا يا وحلا يجو أمري إن آنا كرتا عد كلا أفرن معنيه النظام كاسو إلى علينا هل كاسو تاجيه مالين تقيامه مركي تماضو مالين تلا أبوري إلى مالين تقيامها هل كاسو تاجيه يوحو إلى علينا يا جورتو محمد إيمانيو صلوات الله وسلامه عليه سيدو كلا جبريل عليه السلام هي النبي مركي أو إلهي ودلميي أو عسومي عسومدي ووينيد إلهي كعزومي إن أصاب أخذه سمض يوحي ككرية أو جبريل للسعودي أما أيو الباب والبايو وسموين ككمده مركي سوق على جبريل وحورنا يا هلا فرق فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد وقد بعث إليه قال قد بعث إليه فتفتح لنا سأسول النبي عليه الصلاة والسلام الباب كاستمر كانوا يستاغناه وجبريل عدصدا إن لفروح الله ورنايا يا ضحي وجبريل يا كل صعد ومحمد باقي لا صعد ميا الله درينه يمادو ها والله درينه يمادو فتفتح لنا الباب كي ولا نوفريا منظمين سداس أويهين ملائكته وقرتو الله أمري سدو أمري حبكو ربو إلهي إنا أسميان بيو حلب أسمينيان إلهي سبحانه وتعالى هاي نغي لكوي ملائكته جعلاده ملائكته جعلاته ملائكته إلالسو ملائكته الدعيسو والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته